soo dhawaada saaxiibayaal mar kale lagu sheekada waxaana gabar ilaaliyada ku socota baaskiilkeedii waxaana daba socodida badan hadda waxaana la tusay sheekadii xilli hore si aan u faano sababta daba socda eeyahaasi Lily waxay ku ciyaaraysaa jardiinada eegeedii u bixisay magaca Hegan markaas hooyadeedii u timisay la tagto waxay u socdaa dal kale ku maqnaan doonto maalmo sadarteed waxay Lily u geysay aabaheeda waalidiinteedii way kala tageen taas darteed Lily waxay inta badan nolosha hooyadeeda waqtigeedii ku badan waxay la qaadan jirtay eegeeda Hegan aabeed wuxuu hilib gooni oo hilibka dadka iibin jiray markuu ku soo baxay dukaankiisii arkay xaaskiisii hore Lily dibadda taagan hooyada Lily waxay u sheegtay aabaheeda waxaan ku keenin ilaa la joogto maalmo kooban markuu Lily ku xumaad sababta eegeeda Hegan ayaa la taagnaa aabaheedii gabaha ma jeclaan iyaha sidoo kale guriga degan lagama ogol in lagu hayo laakiin markuu arkay jidada yar Lily wuxuu u damcay wuxuu ogolaaday in Hegan uu joogo haddaba wuxuu Lily Hegan geeyay guriga markii guriga yimaadeen mulkiilada guriga ayaa aragtay Hegan waxay ka cadaysay in guriga loo hayni karin waxay ku tiri aabaheed waa ogtay meesha laga mamnuucay maxaa keentay aabaheedii wuxuu ku yiri akoolun waxay baan joogaynaa habeenkii Lily waxay siisay cuntadeeda Hegan laakiin aabaheedii wuxuu ka cirooday arintaasi markii Lily cusub in Hegan la hurdo aabaheedii wuxuu diiday wuxuuna ku xiray musqusha Hegan wuxuu habeenkii oo dhan qaylintaas ay hurdo helin aabaheedii iyada markaas Lily kacdo tagtay musqusha Hegan ku xiran yahay waxay istaagtay banaanka musqusha waxayna bilaa inay isu ciyaarto markuu maqal heestaas Hegan wadaguu u hurday subaxdii xigtay saldhig kamid booliska yimid guriga Lily wuxuu u sheegay aabaheed inuu hay aan la dawagelin isla markaana uu bixin doono cashuurtiisii runtii mulkiilada guriga ee boolis u sheegtay Hegan aabaheed wuxuu isku dayay inuu qor wuxuu ay milihi laakiin markaas Hegan ka soo baxay musqusha Lily waxay arintaasi qorsoodo daawanayso waxay ka baqaysay in Hegan aabaheed boolisku u dhiibo sadarteed waxay Lily si qorsoodo u tagtay Hegan iskuulka waxay ku qarsatay fasalka muusigada markuu fasalka bala Hegan ayaa soo baxay si uu ka ficilay codadka macalinkeedii ayaa waxnaaqay wuxuuna ka canaantay in iskuulka ay keentay eeg ogolaansho la'aan arintaas darteed macalinku wuxuu fasalka saaray Lily markii wadada maris waxay la kulantay aabaheedii sababta macalinku wuxuu u sheegay arintoo dhan aabaheedii aad buu ugu xanaaqay wuxuuna ku yiri maxaa eeg iskuulka u geysay Lily waan ku daalay arintan wuxuuna u sheegay in Hegan uu keeni doono xarunta lagu xanaaneeyo xayawaanka balse Lily arintaas diyaarmaysan u ahayn waxay si isdabjoog isku daysay in aabaheedii ku qanacsan kala geen isaga iyo ida laakiin aabaheedii wuxuu noqday mid aad u xanaaqsan wuxuu Hegan ku tooro gaariga wuxuuna bilaabay inuu guriga u dhaqaaqo Hegan aad murugsanaa daba carray gaariga Lily aad bay u barisay aabaheedii inuu si sameeynin laakiin uska dhintir wuxuuna geemeel fakaara Hegan guriga ku noqday habeenkii Lily waxay go'aansatay inay baxdo si u raadiso Hegan waxay u diyaarisay cunto isiis aabaheedii soo toos wuxuuna ku jiri waan oga meeshaad u socoto marka dib ugu noqolkaaga oo saaxo dhanka Hegan wali wuxuu fadhiyay halkii lagu tagay isugay Lily balse waqti dama fiid Lily ma aysan imaanin subaxdii markuu Hegan soo toos isagoo jiifa bundada hoosteedii wuxuu arkay mid ay kala wuxuu hadda tamaanadii u sii socday soo kale in loo dili karo markuu magaalada ku wareegay wuu daarwoona ka jooday markaas uu arkay kala cad wuxuu raaciyay ilaa uu gaar dukaan hilib lagu iibiyo halkaas oo ay badan ku cunay haraaga hilibka markuu Hegan u soo dhawaaday hilibka dhamaan iyadii waxay bilaabay inay ku qeyliyaan markaas markuu ila dukaanka markuu maqlo qeylada wuxuuna iri dhamaan iyadii laakiin Hegan wali meesha kama bixin wuxuu galo gudaha dukaanka u saqariyay markaas markuu aad buu xanaaq wuxuuna isku day inuu dul Hegan laakiin eegi cadda uu raacay Hegan u yimid eegaasi wuxuu weerar mulkiilada dukaanka wuxuuna bilaabay inay ka baxsadaan dukaanka Hegan eegi cadda waxay tageen meel duug oo cidla halkaas waxa ku sanay iyo badan wadooyin ku noolaa oo Soobiya ku ciyaarayay Hegan wuxuu isku day inuu la ciyaar laakiin way qeyliyeen sadarteed wuxuu ku laabtay gaarka eega cadda waqti saaxiib leeyahay subaxdii xitad ayay meel si u qabtay iyadoo wadooyinka jooga dhamaan iyadii qeylin Hegan ku jir ayaa la qabtay laakiin Hegan eegi cadda way baxsadeen markaas lamin ayaa arkay Hegan wuxuu u mooday in yihiin dad daacad oo wanaagsan sadarteed Hegan wuxuu u dhaqaaqay si uu adagtooda laakiin eegi cadda ayaa bilaabay inuu qeyliyo Hegan wuxuu fahmay doonay in la qabto markaas uu ka carar meesha labadiin ayaa sidoo kale bilaabay inay raacaan intii orday Hegan eegi cadda way kala tageen Hegan hadda wuxuu isku dayay inuu isqariyo nin duqo jidka fadhiya qar Hegan dhinaca kale baa Lily iskuulka ka xiyay Lily wuxuu ku yiri inay raalligin ka bixin doonto macalinkeedii muusigada Lily way raalligis laakiin si qalmaysan ka ahayn waxa aabaheedii ku tiri Hegan dama maradin doono laakiin qalbigeedii waxa ku jir jaceelka eegaasi sadarta iskuulka dib waxay baaskiilkeedii uga baxday raadinta Hegan waxay sidoo kale dhigaysaa boor ku suuriya Hegan laakiin meel ka mihel dhanka kale intii duqa ay qabtay Hegan wuxuu ka tagtay mulkiilaha hotel runtii ninka hotelka la wuxuu ha ganacsada iibiyo wuxuu ka iibin nolomina Hegan gudaha hotelka ninkii duqa wuxuu lacag ka qaatay ganacsi
ganacsadahaasi wuxuu ugu tagay heegan waxyar kadib nin kale ayaa intuu u gato ganacsadii wuxuu tusay halis ninkaas wuxuu lahaa meel eeyada ku dagaalmaa si uu lacag ugu sameeyo dadku waxay ku shardadeen dagaalka eeyahaasi ninkaas wuxuu xiseenayay eeyga heegan laakiin ganacsadii wuxuu ku yiri eeyga xoog ma laha dhigmiirtana ma kuma haboona dagaalka wuxuu lacag si ganacsadii wuxuuna heegan la baxay guriga isagoo daawo suuxisa ku dhuftay wuxuuna bilaa inuu si cuntooyin borotiin soo xoog yeesho sidoo kale uu garacsi isku bedel ee dagaalyahan oo dhigmiirta maalmo tababaraha kadib heegan wuxuu u naqday dagaalyahan ilkiisi way faqan heegan wuxuu diyaar u ahay dagaalka dhanka leeli waxay wali raadinaysaa eegeedii waxay la kulantay haweeney xanaanaysa xoolaha waxay weydiisay heegan haweeneydii waxay ku tiri ma imaanin laakiin iyadu wadooyin ku wareegsan ama la qabto waalidila eegayga ilaa hadda uu dhintayba intay la hadlaysay haweeneydii qof ayaa baaskiilkeedii xadwoon ka cararay haddaba guriga waxay ku laabatay iyadoo lugeynaysa dhanka la heegan ayaa la keenay meel u dagaalka dhacay sigoo la soo diyaariyay laba eeyaal isku dar ilaa midkood uu dhinto eeyga noolaad ee lagu tiran doonaa kuuliste dadkii daawanaya waxay lacag badan ku bixin jireen laakiin mulkiilaha dukaanka ayaa faa'iideysan jiray haddaba heegan wuxuu la dagaalay madow wuxuu ku dilay eeyga daqiiqado gudaheedii ninkii heegan keen aad buu farxay markuu arkay si uu dagaalamaya nin kale ayaa damcay iswada heegan laakiin ninkii lahayaa diiday markaasii muruq ka dhex qaraxay labadoodii intaas dhexdeedii iftiinkii baa baqtiyay heegan wuxuu ku faa'iideystay fursadaas wuuna baxsaday dhanka leeli waxay jid kula kulantay saaxiibkeedii dugsiyada oo ku socdinaa leeli wuxuu ku tiri ila taag marab inaan guriga aad baa u murugeysanahay eeygii wiilo marka hore wiilkii uu diiday laakiin wuxuu xasuustay inuu leeyahay darooge leeli ka caawin karta inuu daroogada geliyo gudaha wuxuu sii xiranay darooga leeli waxay gees jeebkeedii dadka dhammaan waa la baaray markay galeen gudaha marka laga rabo leeli oo yaray markay gudaha galeen leeli waxay ka tagtay wiilku iska lumeen waxay bila inay cabto daroogadii ugu dambeyn way suuxday booliis ay qabtay leeli waxayna ka heleen daroogada jeebkeedii leeli waxaa la kiisay saldhigga booliiska baaritaanka daroogada wuxuuna khidmad negatif daqiiqadii kadib aabaheedii isigoo ooyaya wuxuuna yahay iminkii waan ka baqay waxaa mooda inaan ku waayay raali ku noqonay heegan ka qaaday waxa heli kartaa eey kale hadii aad rabto leeli waxay tirmay aab marab eey kale markaas uu guriga ku noqday farxa heegan ayaa noo tusay si uu ka soo baxay meesha dagaalka wuxuu tago dooxo diiro hore u gaarkay eeygii cadda wuxuu si wajah u raadinayay cunto markaas ku xaqabatay iyada waxayna qabsadeen waxay geeyeen xarunta xanaanada xoolaha halkaas oo iyo badan uga hayay dad ayay misi u doortaan gabar ayaa xisiisay heegan laakiin markii la damcay qaatay heegan ku weer oo dhaawacay markaas ninkii xanaanada ayaa kala saar heegan iyada kale dhanka leeli waxaana la tusay iyada iskuulkii leela bandhig muusiga maanta leeli waxay ka qayb qaadanaysaa aabaheedu wuxuu imisi u daawado dhinaca kale shaqaale doon inuu heegan geeyo qol kale heegan ka baxs gacantiisii xirgihii wuxuu hamid dabacsan heegan wuxuu weer qoorta shaqaale wuxuu ku dilay halkaasi kadibna heegan wuxuu fardhamaa xabsiyada iyada kale dhammaan iyadu way baxsan waxay inuu arkay inuu heegan yahay hogaamiyahoodii shaqaalihi xanaanada markuu isku day inay iyada joojiyaan wuu dhacwoona suuxay iyadii wuxuu ka fafay magaalada dhan dadkii aad bay u baqeen iyadii waxay bilaa inay weerar hantida sida ugu baxan kaajada sababta dadka magaalada dhan waa la xiray intaas waxa sii dheer iyo kala yaadi iskuulka leeli halkaas oo bandhig muusiga ka socday eeyash waxay go'daamiyeen meesha oo dhan markay aragtay iyadaas leeli waxay dartay inuu heegan halkaas uu joogi karo sadarteedii bay u dhaqaaqday inay hubiso saaxiibkeedii isku day inuu joojiyo balse xitaa si uu doonimo inuu joojiyo leeli wulba xunsi baaskiilkeedii si uu ku raasato heegan iyada badan ay daba ordaya ana waxay isla muuqaalkii aan ku arkaynay bilowga filimka kaasiyaan fahmay sababta iyada daba ordayaan leeli laakiin haddaba iyo waxba ma isan dheehin leeli waa in dhaafna heegan wuxuu karay milkiiliyo toobka iibsiday markii hore dibna wuxuu weerarkii kalaabka lahaa heegan wuxuu doonay ku argusto dhammaan dadkii waxyeelo u geystay kadib eeyo badan idin waxayna weerareen milkiiliyo toolka waxayna si xun u jeexeen ilaa ku dhintay leeli daba socotay heegan sidoo kale halkaasi timid markay booliska yimaadeen waxay qabteen leeli waxay u malaynayeen in leeli amar siisay eeygeediisu u dilin ninkaasi balse waxay qiyaanaysa booliska waxayna ka baxsatay meesha kadib waxay maqsheen booliska damacsiina tagaan heegan iyo dhammaan iyaha kale sidaa darteed waxay aad dukaanka hiliblaha laakiin waxay aragtay in heegan isu dilay hilibihii dukaanka lahaa ee hor u arkeen sheekada filimka asoo markii hore damacay inuu dilo heegan hadda leeli waxay ogayd in heegan argus ugu jir dhammaan dadkii dhibay waxay ka luulsanad aabaheedii sababta isiga iyo qofkii kala fogay isigiyada isla markiiba waxay aabaheedii waxay u sheegtay wax walba maxaan isiga sidoo kale dhaawacay heegan wuxuu karninkii ku qasbay inuu dagaalka kalaabkii dagaalka kiisu xun u dirji kanaga ee dhigmirta heegan wuxuu u yiri iyadiisii kale waxayna si xun u dilin ninkaasi markaas kadib waxay ka baxsadeen meesha hadda boolisku waxay bilaabeen inay togtaan dhammaan eeyaha halkaas leeli waxay ka heshay eeygii cadda oo saaxiib ah eeygeedii heegan kaas oo sheegay halkuu heegan u socdo leeli waxay dabash eeygii cadda laakiin boolisku waxay ku dileen jidka dhexdiisii leeli waxay isku day inay juuso booliska isagoo ay dhegeysan waayeen waxayna dileen eeygii cadda waxay gurigeedii ku noqotay keertay mulkiilo guriga oo dhintay waxay faanteen heegan isna uu dilay waxay kala walaasantay in heegan aabaheedu bartilmaasan doono leeli waxay u baxsay iraas aabaheedii isaguna wuxuu raadinay hab isku difaaci karo
intii lagu jir iyo badan ku haris Lily wadada dhexdeedii waxay isku day inay la hadasho Hegan laakiin ku qeylinay isiga Hegan ma uusan arag Lily saaxiibtiisii hore tahay waxay jibsi kalsoonidii kuna dhaaftay Hegan wuxuu doonay inuu weer Lily laakiin markaas inaabaheedii isaga wad qordaab lagu rido wuxuuna dabcinayaa isku cabsi geli dabka balse taa badalkeedii way cirad waxayna bilaabeen inay khiyaaliyaan markii Lily waxay been ciyaarta qalabkeedii muusigada kaas oo ugu ciyaartay Hegan soo dago laakiin Hegan ma dhigeysan ugu dambeyn ma iidash waxay fiirsadeen markii muuqaalka muusigada aabaheedii wuxuu fahmin haduu badbaasiyihiin Lily idin wuxuu fiirsadayay kale Hegan Lily wuxuu isku fiirin si qeyr leh sheekadii wuxuuna baray in haduu ii xiriir xag dareenka la yeesho qof oo si bixi daacad ugu noqon karo maxaa yeelay xayawaanka daacadda ah sidaas ay sheekada Hegan iyaga ugu dambeeyay kabsada qalbiga Lily inkastoo ay la kulantay dhibaatooyin badan halkaas ay ku dhamaatay sheekadeeni halkan la soo gaartay aad baa u maasan tahay hadduu jina subscribe saaro doo subscribe ku wax ka cusub muuqaalka la noo sarsi meel dhorna gaar aad baa u maasan tahay